بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرتشرفته مدحض قرنكه حكومة يقريشي حرديجينتا يقرصوركا مدحوينياشي هوري حسابتا قرنكا مدنكا iyo wakiilada ka jooga dalalka Djibouti iyo Turkey intaan kale arkayo iyo cidii ka soo qayb gasho dhan anoo bahadaqaya soo dhawaada waxaan hambalyeeyay bogaadin dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa lixdan guurada ka soo wareegtay maalintii xornimada Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska ka qaadatay gobonnimadeeda waa maalintii ugu horeysay ee gobolada Soomaali ay ku nooshahay dhan ay ugu horeeyeen ururka ahayn inuu xorriyadii qaadano lixanka sano oo dhibtooda iyo dheeftooda walaha oo halkan badan la soo maray oo guulo badan la gaaray waxaynu joognaa Ilaahay mahadi waxaynu joognaa nabad waxaynu joognaa walaaltinimo waxaynu joognaa midnimo Soomaaliland waxaynu joognaa barwaaqo Ilaahay roob iyo qabow iyo nimcayna siiyay intaba Ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambaliyo meel aad joogtaanba Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkiisa sidaas oo kale inagoo hore u sii maray oo guulo badan gaadhay qof ahaan iyo qaran ahaanba inuu ina gaarsiiyo walaalayaal maalintan 16 Juun waa maalinta ugu qiimo weyn Soomaaliland ee ay ka xorowday gumaysigii reer Yurub ee Afrika oo dhan qaybsaday oo aynu foolaad ka ahayn qaaradda Afrika 60kii intii xornimada qaadatay kuwii ugu horreeyay ka mid ahayn ayuu nasiib koodii Juulaay aynu la midownay Soomaaliya sidii halkan ay ka sheegeen waayaraga adna Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdullaahi iyo taariikhdu qorayso waxaynu midnimada bilaashurada ku galay waxay ahayd in shantii Soomaaliyeed la soo doonto shardiga kaliya ayaynu ku xidhnay shantii Soomaaliyeedna maanta midowga halkeedii joogtaa Soomaaliland halkeedii joogtaa garwalo islaam waxa Soomaaliland leeyahay oo midowga kaliya garan maayo shantii hadda ay suganayaan ka mid u baynahay haddii kale nin waliba halkiisu gudooda hore ku yahay ninkii diidaanay isaga daari ku raagmay taariikhda hore looga sheekeeyay dhowr qodob oo marka laga warramayo maalintii sidii wax u dhacay ayuu baa laba qodob ka saxaya galabtii markii Sheekh Cabdullaahi wuxuu xurdeen weyn oo xoogaan ahaado 20 jir baan ahaa qudheed wax badan kama yariye dadkii goobta taagnaawan ahaa maalinta dal kasta waan ahaade ee aad u sii xuso wixii dhacayay malcabd الشيخ إلى الشيخ إبراهيم براون كتير عيال كيها ماشي أنا كدوين قلبت عشرة حين مركو ده أيي عالم كي إنجليز كلا شيء لما صار العالم كله تما عدنا وكجبي أو جرى كاسو تريه بس ودي هانيجي هذا يشير وحنا إلى الله بيرت حرية على تجي لما تجي هبين كارا عالم كوحنا مصاري ما شاء الله يقول لك شقالة taana goobjoog baan u ahaa labadaas saxiib u baahan yahay waayo markan beerta xuriyadu markaa ma ahayn meel tago farda iyo waxba joogo iyo odayaal iyo qoladii maxay ilaalada ahaa iyo waxba ka buuxdo ma habaysnayn maalintii dambe 26 maalintii ka horeysay waxa shiray maalintii 27 halka maxkamadda sare ee goodirka waxa fadhiistay baarlamaankii Soomaaliland la doortay waxa uu helinayay 3 ama 4 nin oo Ingiriis ah oo kuwii maamulka hay'ad ah barasaabkii muu joogin oo maalintii calanka la saarayay maalmii ka horeysay u baxay waxa joogo ugu tuwayna markaa secretary generalkii oo ahaa Mr. Carl ninkii loo jiray waxa qura taandoonaya inaan taariikhda ku xuso loogaado waxa weeye waxa quraha maalinta ay nooga soo baxay Soomaaliland hal qodob
وهذه دور لمدة القادة لها أمور كلمة دعين واحد قدومي كارل نكى إنجليز كلا يدرك سياسي واحد اللي هلا دورته قدومي كحيان برلمان كا برلمان كان سومالا هلا دورته هلا دورته قدومي كحيان شامع محمد قالب على دورته اللعودي وأنا استمر كده دمبو وكذا قريب قرايه ونقدم قدوميه برلمان يحاول كل شيء تجي هذه مركا مدحوين الأورال ها حاج عمر أسكر حزب جوه هامضة أما أروح كلا دور الله هنا على الوريد لها سيده وليعيس أي أحد وتلو بحث يعتبرها لكن أرنتها أهيد شنتي هذا الدور وآتي تذكر لوجا شيء حماسة أنا في لوجا رسيفري هذا لوجا قاضي أي وحول يا وحول من هالصعود إلى اللي حنا نباها يعني كهذلي تذكر هاي تاريخ ذا ما تشوفونه ما نقسمتها لكن آخر شيء طبعا كواركي رجع هذا وحوله شورية وهذا حاج راح نور وهذا بسباس وهذا مايكل مريانو وهذا شيخ الرجلي شيخ قبل القصة دورتي أي أسنا كان هذا وملها القرآن كنت فرمر كده ما وارق دري لما أنتوا وحي استبان مرين والله جاي وإن له قرآن الذي وحي إسكوا درامر القرآن الصومالي شنتها الله يسكدر على قارة قادر ما ينو كيبروها هم بالله يستا wax gaar ah lama qaadan shantii suurad baa la doonayaa buddig bay ruunahay inagu ay ugu horreeyaan la soo maray dhamaantood sharti kale lagu xidhay waxa hadal dheer jeediyay Karl ninka Ingiriiska ahaa hadal dheer jeediyay oo ku yiri waxa u baahan tihiin inaad intaydaan isku darsamin inaad dhowr qodob ka heshiisaan waa ka koobaad dastuurka ku midoobaysaan waa ka labaad dawladda soo qaybsanaysaa waa ka saddexaad cashuuraha soo midaynaysa waa ka afraad ciidamadu soo midoobaya waxaan loo tarin lahaa inaad qodobada ka hubsataan waxa dareenku ahaa markaa waxba la sixi maayo shantii Soomaaliya la doona ayaa waxa soo dhan looga booday tu karo taariikh oo qoraal ah jirta oo doonaya in la xusnaado 6 bilood ka hor inta ay naafodkii February gelin markii la arkayo xisbiga asal xoog weeyahay aadan Cabdullaahi Ciise oo xagga ka ahaa markaa prime minister oo dhibaato badan haysto sanadka u dambeeyay 3 goor codka Soomaaliya loo qaaday oo sida imika ay soo haystaan si ka daran isoo haystay ayaa wuxuu soo diray ninkii sharciga yar haysan jiray basbaas oo jiray wareenka kitaabkiisa inaga saara gobiyo wuxuu ku yiri dhibaato weyn baan haysatee intaanu anagu kala baxayno idinku loo kaadiyay Cabdullaahi Ciise wuxuu dareemay markaa in qoladani shuruudahoodii waxoodii wataan haddana mar labaad ayay xamar tagay markii la doortay ka bacdi wafdi hoggaamiye Maxamed Xaaji Reer Cigaal Allah u naxariistay isagana afkiisa ka haya markii ay tageen xamar aadan cadda uu yeedho wafdigoodii horta lama qaabilin oo ciidamo soo dhaweyn nimanka iyo walaalnimada ku dhoolay si wanaagsan ciidamo soo dhaweyn markii ay shirayeen xitaa maalintii hore lama qaabilin aadan cadda uu yeeray wuxuu ku yiri waxaan ku talin lahaa dhibaato badan baan haysatee inaad ilaa waqti nasiisaan isku darkeena wali anaga agtikii iyo xubnaan diyaarin xeerkii weesh ilaahay qodobadaas waa qodobo u baahan taariikhna la ogaado in midnimadu aanay ka koobnayn laba dal oo kaliya shantii ay ahayd dabeetana runta biyo kama rabcaanka inuu caawa taaganahay aynu u sheegayna cidina waxa weeye shantii baa isu iman kara laba gaar la isku tooli maayo Soomaaliland keeda la sameyn maayo inta waxaan uga gudbi waxaynu caawa eegi doonaa soddonkii sano ee aynu midnimada ku jiray Soomaaliya iyo 29 aynu gooni u taageerayno waanu maamuleynay maxay ku kala duwan yihiin labada sawir ee jira ayaynu caawa eegaynaa marka labada sawir eegnana waxay eegnaa mustaqbalka soo noqonaya haddaynu ku horeyno soddonkii sano in midowga ahayn dhibaatooyinka dhacay horaa loo sheegay oo loogu celiyay oo waxa ka soo qaadi maayo
laga bilaabo ninka la dhaha tima caddaa caawo kale iyo qolada koonfurta had iyo jeer gabaygiisay saaraan aan sidii eega kana saar kana sii 6 bilood ka bacdi muxuu tagay tima cadde muxuu yidhi dhinaan dowlad ba xabar jirta hab dabaal degi duqadii baarlamaanko dekadii dugsigii baarlamaanka iyo dekadii xabar baare berbere daadku ha qaado dooniyaanay ku leexan nimankii karal dooday ee daaqad ka saaray doodii isticmaalka dagaalka u qaatay baanu ahayne dumaal maanu ahayn danteena laba diiday watima cad kolka dudadaanu ahayn oo danteena laba diiday wuri dee markaa haddii shantii la waayey tasaar ka nasiib qaadi mayne iyo dugsi qabeelad malaba ha ii soo qabanine danteena laba diiday dumaal maanu ahayn dudadaanu ahayn oo raggii kala daaqad ka saaray baanu ahayn adigana ku joogin haddii aynu eegno 30 sano aynu Soomaaliya mid ahayn waxa la yiraahdaa imka deyn baa laga dhaafayaa Soomaaliya markay isku jirtay Somali Republic oo malaayiin dollar waxa la hubaa in la oran jiray qabrigii deeqda Somali Republic markii la ahaa oo adduunka oo dhan lacag laga amaahday balaayiina Mareykan baa laga amaahday Ruush baa laga amaahday Yurub oo dhan baa laga amaahday balaayiin dollar oo imika aan tirada ahayn baa la amaahday deyn dalka loogu leeyahay oo horumar laga sameeyay wixii mashaariic laga sameeyay la xisaabiyay buugga oo qoray ninkii loo jeeday John Drysdale 1990kii waxaan dhowr iyo 10 boqolkiiba aabo ku sheegay wax 13 ma hubo ka yahay imika laakiin buuggaas ku taalaay dhowr iyo 10 yar buu ku sheegay wixii Somaliland ka soo gaaray dhamaanteed waxayna dushaabir ku garanaynaado inta badan ee dawladda way xusantay waxa ugu weynaa ee la sheegan karaa ee had iyo jeer lagu faaro waxa weeye wadada dheer ee ka soo baxda Muqdisho ee soo gaadha Burco ee haddana lagu daray ilaa iyo Karabayd horta wadadaasi waa China uu sameeyay ee deeq Soomaaliya oo dhan ahayd waxa inaga soo gaadhay waa tirada ugu yar waxaan ku kilomitir gaari weey laba waxa inaga soo gaadhay warshada sibirka dekada Berbera oo xogay kordhiga lagu daray airportka Berbera oo loogu talay qasti military oo aan isagu horumar ahayn ahaa saldhig laga kareeyay dawlad sheeye ah oo inaga wax manaafacaadi inaga soo gaaray waxa inaga soo gaaray la mashruuc oo mid hirgelin midna aanu 2 sano wada soconin waa warshadii laas qoray ee kalluunka iyo mashruucii beeraha ee wajaale waxa soo raaca isaga oo kooban biyaha geedeeble ee jaaro ay sameeyeen waxa ku jira oo soo kordhay ee dibadda inooga yimid ee la oran kara xagga tacliintu ka ahaana waa dhisbihii iskuulka nimka jaamacadda Hargeysa oo bilow ahaa markay soo gaadhay iyo iskuulkii Jarmalka ee Burco intaasi ayaa inaga soo gaadhay mashaariicda kumaankunka intaas oo hadii la isu geeyana 110 kama aha barnaamijka la faan oo la fari kama qodna rubiciid ma aha waxa ay soo gaadho warshada Mareeri ee sokorta maari dilgiri ruuciid ma aha oo 10% kama aha xaafada waa bari boondheere iyo xaafadaha wadooyinka laga saaray markii wadooyinka dhisayay ee Brazil laga saaray xoolihii la geliyay rubiciid ma gaadha iska wada wadooyinka dhaadheer jubooyinka wiigash talaabay waxa ka qiimo badan oo ka weyn intuu Faysal Cali Waraab mashruucii ka fuliyay Baydhabo iyo markuu dhisay Galbeed oo kan hor fadhiyay taa intaas ay naga soo raacday 19 kiilo halkan nimid dhamaanteed naga qaxooti ka soo noqday xariye qaxooti ka yimid qurbaha qaxooti ka yimid khaliijka carabta oo intuu 30 sano carabta ku hayay Isriib ku dalka xorbe u latay qaxootiga ugu badana wuxuu ka yimid xamar iyadoo oo ilka ku sida caruurta wixii ka soo nabad galay ee aan la dilin ee ragga lagu dalay dariiqa ugu mudnaan ninkii qori jiray buugii mulaaxo ee reeb Brambo ahaa reeras qoray oo ahaa buriska ahaa jiray hebel cadde ee uu buugii qoray sheekadii wanaagsan mulaaxo loo jiray oo kamid ahaa rag iyo dumar wixii dhibaato dariiqa markii la qaxay ka soo gaarina in badan halka fadhida
ayaa ka mid ahaa inagoo wada qaxootiya oo xoolihii wixii aan lahayn xamar kaga nimid oo guriyihii filooyinkaa xamar kaga wada nimid oo wixii baanka yaale kaga nimid ayuu nin waliba kusoo noqday Somaliland iyo halkii uu ka tegay 60kii markii la lahaa dowlad baa la midoobo xamar oo barwaaqo laga gelayaa dadkii halka ka yaacay wixii ka nabad galay bariga baabuurtii dhexda lagu dhici jiray iyo xawshada loo jirtay inteeni ka soo nabad gashay iyadoo qaxootigii ku badan xawarka soo noqday balay halkaasaynu ka bilownay waxaynu ka bilownay magaalooyinka waaweyn oo lahayn biyo oo lahayn nal oo dariiq la mara aan lahayn oo meelba miina ku xiran tahay wadooyinka guryaha badankooda waaweyn sida Hargeysa iyo Burco iyana ay ku xiran tahay Chalfis talaynaaday dadka la heesaa ay lugaha ay kaga xiran tahay sakeedka dariiqyada oo imika curyaaminta u badan naafadi ay yihiin kuwa miilooyinka aan ugu soo galnay lugaha gooyeen ama indhaha iyo gacmaha tireen ama kuwa dhinteen ay u badnaayeen aynu soo galay magaalada badankooda iyagu wada nin waliba halkii uu dego laga bilaabay nolol dhibaatooyin wayna soo mareen waayo dawlad duntay dad baahan jeel male booliis kala qabta male meel wax laga cuno male Hargeysa saa lagu jiray ilaa biriya dheeraad baan maraya inuu qaatay hudheel la tagaa oo la taagnaa oo oday iyo suldaan iyo sheekh iyo nin sharaf laba ninku sidoo socdo maalintii hadduu helo meel lagu karinayo qabadi oo biyaba loo helo ay ilaahay mahadiya gobolada bariga 30 sanadood ee mideynta ahayd markii la soo noqday magaalada Laascaanood meel biyo laga cabo meel ahayd waayo ceel qura lagama qodin waxa la xigay wasaaradda biyaha loo jiray waliba reer Laascaanood baa loo dhiibaa lagu xaman jiray markii la soo noqday waa kan marxaatigeed ceel laga cabo ma jiro meel isu taagaa ma jirin waftiga horeeyay baan ahaa ee tagay Laascaanood 39kii aniga iyo diqsiyo ilaahay u dhaxariistay ma jiro hudheel yaro in cilmi lahaa ka fura halka hadaynu ka bilownay maanta halkee bari joognaa leena ma ictiraafin baa la yiraahdaa dhaqaalaheena adduunka ulitay baa la yiraahdaa iskeed sumag cawday baa la yiraahdaa adduunka kuma jiraan baa la yiraahdaa halkeenu joognaa maanta bal dhan kasta u fiirso oo kuwa la ictiraafay ee inta la qaadanayay iyo inaga qof walba qaran waraaqo garaab sameeyo hadday tahay nabadda hadday tahay hay'adaha dawladda hadday tahay horumarka baaxmitarka hadday tahay sutaga dadka isdhexgalida amnaada dhan kasta u qaad labada garaab waxaanu ka bilownay nabadeynta taashak Cabdullaahi Sheega laga bilaabo tacab badan baa loo maray inta uu sheekhu sheegay waxaan xusinay ugu darayaa horta mid baan xusinayaa waxa weey ilaa cimriga hawd dheereeyay xasil meegu nuuriyahay oo maadimo wari meelan maqal geeridiisa xasil meegu waa dadka maanta Soomaaliland ugu daaweyn wuxuu ahaa macallinkii isaga oo principal ka soo kaxeeyay Saleebaan Axmed Guleed professorka jaamacadda Amuud haysta isagoo caruur oo loo wada ka soo rabay iskuulka qoray buu ahaa maanta uu leeyahay cimrigiisa la hadaayay inta dadka wuxuu baray xasil meegu maanta loo been ku ognaa sheekh waxyaalaha badan soo wada maray oo loo joogaha waxa ka cajab badnaa oo caawdana sheekhna waa joogaaye inaan ka sheekeeyo shirkii geerisa Sheekh Cabdullaahi oo ahaa aniga kii igu adkaa ee biliya bad beelaalka isku laayay taliinay waxa uu ugu dhibadnayd Sheekh Cabdullaahi maanta aan tukayeen bay hawlo baday maanta Sheekh Cabdullaahi baa tukanaya iyo Sheekh Muuse Goodaan dadka waxa soo maray sheegayay ayaa ugu dhibadnayd ciid baa noo soo gashay geerisa la joogaa reerahan istilayana waxay aamin waayeen oo akar weyn inay soo raacaan salaadii oo halka Sheekh Aljoor iyo Sheekh Muuse Goodaan markay dhigeen ay qolada kala tiyaano ku xirmay halkaas ay uga deetana meel dhexan istaago 7 khibrood baa ku dhuftay istaw Muuse Goodaan iyo Sheekh Ali wixii joogow iyo odayo nabada taa loo soo maray dhalinyarada joogtay iyo hawsha loo soo waray ka mid tahay ma huwa inuu sheekhu joogay maalinta uu fadhiyay kale laakiin ergada uu nugula jiray laakiin kulli Muuse Goodaan baan waa kafta badan markii dama ka dhacay nabadii ilaahay waa lagu guuriyay dawlad miskiina waa taa laga soo sheekiyay waxaynu nahay dalka aan la ictiraafin ee halka ka soo qaaday ee waxaasi haysteen ee 5 doorasho galay
oo saddex madaxweyne bedelay iyagoona cod ku kala baxay bal afrikada dhowr iyo afartanka dowladooda hal eega inta la samayn kartay waa ilaahay mahadi iyo awood ilaahayna siiyey ila inagu dad kale waxayna dheereeyeen ilaahay bay ugu gargaaray inaan cid markaa dhex baxo waxaanu qaaday saddex madaxweyne inaan dooran isku bedelo oo dhiftay afrika dowladda afrikaanka inta aynu jaarka nahay waa ay dowladda inta samaysay Kenya mar laba goor bedesho dagaalkan ay waa looga kuma ka dhintay waxaanu sameynay laba doorasho dowladda hoose oo mar xisbiga furay waxaanu dooranay baarlamaanka oo in badan imika joogo haddana iyaga imkaanu qalqaarinayna iyagana leenahay dee hore u diyaar gareey shuruucdii aynu bedelay 15 baa fadhidaro way dheer tahay inagoo isoo gol wad ka mid tihiin waxaanu dhisanay ciidamo amni waxaanu dhisanay wasaarado inoo wada shaqeeya oo qaar badan oo la ictiraafsay ka awood badan waxaanu maanta haynaa halkaas oo ardaygu ka tagi jiray oo xamar la qaban jiray oo meel seexda aan jirin oo ciidad awranta aan jirin oo dhammaan ragga xamar sagaalka wada fadhiya ay wada garanayaan wixii ka qabsaday si loo helo shaqo ama jaamacad maanta taagtoodu waxay doontaa ahaatee qaar fiican oo aad u sareeyo master degree-goodana waa leeyahay qaar bilowna 20 jaamacad bay noo furan inuu gobol walba waxa laga helayaa inuu ka soo bilaabo bidaa'iga elementary sulka dhexe ka sare iyo jaamacadda oo laga yaabo midna inuu gobolka loo gudbin aynu ku sameynay 30 sanadood aynu ka maqnayn ee leenagu lahaa dawladda iskeed isku dhawaaqday marka nimada ahayd laba iska dareeq u lahayd sheekh iyo camuud bay lahayd baacimtirka u soo noqo maxay noo qabsoomay maanta Somaliland waxay leedahay intaasoo bilyaneer oo business xor ah oo suuqa xorta ah aqligooda iyo kartooda ku shaqeeyay maal qabeenada ugu waaweyn ka mid ah 30 sano ee aynu isku jiray barjirde xuseen halka ka tagay mooyaane taajirka la sheegay ku halagu soo diro Somaliland maanta imisa hadii la yiraahdo hal eego Forbes jeeda lagu qiyaaso ee maal qabeenada Somaliland imisa uu garanaysaa milyaneer ama bariye ka weegsanay shirkadaheena isgaarsiintu waxay ka mid yihiin kuwa ugu adduunka ma Afrika ugu casrisan lacagta saadka lagu kala wareejiyo Kenya u baabay ugu horeysa Afrika maanta Mareykan iyo Yurub ay higsanaysaa say ugu kala bedela saadka inuu bedela shirkadaha xawaalada dahabshiil oo kale dhowr boqol oo dal bay ka furan tahay iyadoo xartooda hargeysa tahay كمو هيرجلستو كيسلا إنه شوفني قف إنت عن لكسبي إما سوى سبتارو برافيت إنه ما أنتره أو قارنا بركنا بقرو أو وضنها لو قرو أو قبل الصومال لا ده بكتب عضو إن وضنها الله قرو هرجيسة ما أنت تشوف إما ساي ما ده عذرها وين كعروس سبتارك أدنى هرمرك إنت عليك إن أول بره إنه صدق كاسنا قادني بلو قياس صدق كي إنه هرجع شغلي ودويك iyadoo oon adduunku lacagna waxaan u baahan adduunku lacagna u lahayn iyadoo oo ay ifto aanay inoo yeerin oran sida dhib ay ku tagijiya wadada ay cid waliba ka baqatay ee Ingiriis ka baqay ee dawladda Soomaaliya ee caawidaheeda ay ka baqdeen ceer gaabo iyo burco maanta waxa uu haray 50 kilomitir 3 sano gudahood oo Soomaaliya samaysatay oo aan cidna inaga caawin bal waxaad ka fiirsaa magaalooyinka aynu ka tagnay 60kii dadka waaweyn oo aynu u soo noqon iyaga Soomaaliya Laascaanood Ceergaabo Burco Hargeysa Gabiile Boorama waa tii magaalada Hargeysa mooyee laami lahayd maanta aynu soo qonay 91kii 19kii maanta inta aan magaalo sheegay ma midaan dhowr kiiloomitir oo laami lahayn baa jirta soddokii aynu isku jiray Soomaaliya iyo 60kii Ingiriisku haystay midna laami lagama soo goboladii wadooyinkeen maanta tagtaba wali waan iscaraarayna heblaayo magaalada saadheersatan hal ugu darbar taagan biyaha inoogu adag biyaha ayaa inoogu adag
sahanka aynu samayno qurasto ka sanadood aynu dalka oo dhan ka samaynay ee magaalooyinka degdeg biyaha ugu baagayna Hargeysa ka mid tahay Laas Caanood ka mid tahay aynu u samaynay 30 sanadood isku jiray maynaan samayn ee mid walba maanta buug dhaqaalihiya u baahan ee la diyaariyay magaalooyinkeenu halka inoogu adeego biyaha Boorame Gabiley Hargeysa Berbera Burco mooye inta kale biyo wada baahantay iyo Ceergaabo labaas biyo xoog loo ku filayaan laakiin waxaan ku faraxsanahay hubaa inaynu intaba u hayno daraasadii kuwa wax laga qaban markaynu eegno ceelasha dhaadheer ee la qoday intaynu dalka ku jirnay marka la isbarbar dhigo boqolkiiba 50 bay ka badan yihiin ilaa Ingiriisi kuwa la qoday koob iyo iskaala taga sanadood joogay dawladdu waxay qodayba mid walba inta ku dartayba tii hore Soomaaliya ku miyaa u badnaatay dhamaantood bayna gaarin waxa inta inoo dheer cohesionka wax wada qabsiga marka la waxaanu qabsana aynu isu dhannahay maxaa kamid ah ilaahay ku qaaday waxa la tacaalana cudurka la yiraahdo COVID-19 sidoo qof baan garantay ilaahay ha u naxariiso jannada ka waraabiyo culimadu waxay tiraahdaa dadka daacunka iyo kuwa cudurada caynkaasi waa ahlu janno ilaahay jannada firdawsaha geystay ila tamayna garantay inta kale weyn ka badqabnaa markii cudurkaasi lagu dhacaynu qayro ku dhufanay aanu iskaashano aynu isku tashano cid inoo maqan dibadda ka maqan sugumeynay waxaynu gaadhnay midnimadeena iyo soo golaanshaheena dhammaan Soomaaliland oo dhan maanta cusbitaalada Ceergaabo ka Laas Caanood ka Burco ka Berbera ka Hargeysa ka Boorame in loo hayo qalab aan 10 sano ayna gaari karin oo ayna samayn karin mid walba in loo hayo oxygen ku filan iyo laboratory ku filan oo ilaa dhiyanka qaadaya inay dhammaantood wiigan soo wada gaarayaan taana ay keeneen lacagtii aynu soo geynay dawladda iyo shacabka inagoo isaamsan oo midaysan oo aan jirin 30 sano ee aynu la midaysan qolada halka inta waxaan ku soo koobayaa dulxaadsi wixii aynu qabsanay dhinacyo badan marka waxaynu eegaynaa 30 sano maxaynu macaashnay 30 hore maxaynu hayn oo marka la ilaahay xamar ku soo noqo ma 30 kala xabsi ku noqda halka aan marino hore uga socdaan raba oo goorada dawladda yeelasho haddaan inta horumarka inta ku daayo waxaan u gudbayaa arrinta wada hadallada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii London ayaa golayaasha loo ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxa ka soo baxay inaynu wada hadalno laba dawladood simana waana talaabadii horreysay wada hadalkeenu ku bilaabmay wada hadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dawladood oo siman waxaan ku dhamaanayaa laba dawladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda la isku dhexgalayo waxa la yiri in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ay soo socodka waliba bracket baa la geliyay 3 qodob sportska iyo culture-ka dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business horteebo bilaabmay lacagteena iyo shirkadda isku muraaqay isu socodku dad Soomaaliyeed oo walaalo uu iska socdaa wixii isdhexgalaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka xeer baa joojiyay kuma jirto qofkii siyaasi ama siyaasad u taga intuu iska taga siyaasad ka qayb galay waa dambiil qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaaraysa sababta kubadda yaa la doonayaa inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Somaliland sita oo dawladda Somaliland dirtay oo magaca Somaliland ku ciyaaraya koox muusiga tagaysa ama ruwaad tagaysa
waxay tagaysaa baasaboor Somaliland iyo calanka Somaliland iyo magaca Somaliland qof kaliya uu tagi kara qof muraadi hadduu socdo waayirki laakiin wixii institution ama kooxi waxay ku tagi karaan baasaboor Somaliland calanka Somaliland magaca Somaliland fiisa ka soo iyaysaysa Muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii inta la waayo cidina tagi mayso way isgaadi mayno iyagu ma ogola inay saa yeelaan fiisa bixiyaan waxayna arkaan gobolada waqooyiga inaguna tabayo ka tabaye waxaan wareer laba dowladood nahay qof aan fiisa calanka Somaliland iyo baasaboorka Somaliland loo fiisaynayni isugu tagi mayno ma xili karno shaqa lacagta isdhex gashay businesska isdhex galay ma xili karno dee qofka sodonkiisa siyaaranaya ama qofka ka u tagaya ama qofka shakhsiga muraadkiisa tagaya imikii hadda radna awood oo socda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan oranayaa Somaliland marmar baan la yaabaa dadka baqday ee waxba sana de horta nimanka waxaan ahaa xornimadii naga luntay 60kii way luntay raad aynu nahay ninka raacadina dib walba u mara baqdo shakiga ma qaba isaga baadisa doonaya qolada geela raadisa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay saalada ay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo 7 cisho qatana orday bay hadal haduu dhow yahay daalkii uu ka baxa anu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonay ay dhowdahay oo meel laga daariyo meel laga wada cabida inaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaynu baqanaba maaha waayo dhamaanteen gurood baynu nahay xorriyadeena lutilixinkii waan inuu simanahay ninanku eedeyn maayo waxay noo balana midnimo wax wada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in la isu dul qaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhawaan gaarno ayaynu bala dhamaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh